بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جزاكم الله خير إن شاء الله تعالى dadka gacanta loo taago qofkii wax uu heli kara intaas kadib khudbada waxay ku saabsanayd laba arrimood oo aan suuratul kahfi aayadii ku jiray ka soo qaadnay oo bal nolosheena inaan ku dabaqno aan tilmaamaynay labadaas arrimood oo ahaa hoggaanka ummadda muhiimadda ay u leeyihiin horumarinta bulshada taas oo aan soo qaadan ugu horeyn dulqarnayn markii uu safarka ku maraayay adduunka ayaa meesha uu tagay waxaa salaaxiyo uu lahaa in uu dadkaas meesha joogo inuu maamulo markaas waxa dadkaas aad maamulaysid maamul adigu wanaag imma anta taqsiday adiga markaas aad u aragtid iyo hawsha ayaa loo idmay inuu maamulo qaacido wuxuu inooga tagay oo quraanku inoo tilmaamay sida ay tahay maamulku inuu yahay qofka xumaatada sameeyana in yani xumaatadaas uu sameeyey lagu qabto oo xumaatada laga celiyo qofkii wanaag sameeyana in la yiraahdo waad wanaagsan tahay oo wanaagii uu sameeyey lagu abaalmariyo saasuu marka wuxuu yiri amma man dhalama fasawfa nu'adhibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adhibuhu 'adaban nukra wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'an al-husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra marka qaacida halkaas waxa ka soo baxlayado الثواب والعقاب oo ah qofkii xumaan sameeyana in la ciqaabo ciqaabta nooc kala duwan ay noqon kartaa wixii marka loo arko qofkii wanaag sameeyana in la abaal mariyo laakiin mushkiladu waxay dhacaysaa hadii qofkii xumaatada sameeyay xumaatadii uu sameeyay uu ku helaayo ama amaan ama abaal marin ama madaxnimo meeshaas waxa la dhiiri gelinayaa dadku inay xumaatada ay wada aadaan maxaa yeelay waxay arkayaan qofkii xumaatada sameeyay oo aan waxba laga qabanaynin marka waa tarbiya xun meel xun ay dadkii aadayaan diinteenu marka saas ma qabto waxay tahay qofkii dulmi sameeya qofkii xumaan sameeya waa in yani laga qabto xumaatada si ayna dadka kale ugu fidnoobin qofkii wanaag sameeyana waa in wanaagaasi lagu abaalmariyo oo la yiraahdo ugu yaraan waad ku mahadsan tahay hawl fiicnaad qabatay si dadku ay ugu tartamaan xagga wanaaga oo markay arkaan qofkii wanaag sameeya inuu bulshada dhexdeeda qiimo ku yeelanayo wanaaga xaqiisa ay aadayaan marka sidaas qaacido fiican oo maamul ah ayay qisaas qaybtaas inoo sheegtay qaybta waxaan soo qaadanay xigmad waxaan soo qaadanay filosofiya qaarkood oo reer galbeedan ay sheegeen quraankan akhrinayna xaqiiq ahaan uu inoo taabsiinayo oo ah waxa la yiraahdaa ma jiraa beled ama shay magaciisa la yiraahdo beledkan waa beled faqiir ah oo wax ma haysto ma jiro laakiin waxa jira oo kaliya maamul ama nidaam beledkaas jooga oo ku fashilma dadka ilahooda dhaqaalaha si loogu maareyn lahaa intaan baa jirta hadii marka loo helo dadka wax u maareeyo xoolahooda ilahooda dhaqaalaha beledkaas faqiir ma noqonayo hadii lacag kasta uu haysto laakiin dadka u maamulaya ay si fiican ugu maamuli waayaan oo ayagu iska kala qaataan beledkaas faqri kama baxaayo marka hadda wadankeena ma waxa ku yar ilaha dhaqaalaha ma inuu yar oo dhibaatada in haysata xoolaha inuu yar miya mise wixii inoo maamuli lahaa ee inoogu isku aadin lahaa ayay mushkil inaga haysataa halkaas waa marka su'aashu marka dulqarnayn wuxuu imaaday qolo ayuu imaaday qoladaas mushkil waxa haysatay qolo ayay ka awood badan ayaa ku soo duuli jirtay markuu u yimid waxay ku yiraahdeen xoolaan ku siinaynaaye darbi ma noo dhisi kartaa markaas wuxuu ku yiri xooladin kama rabay wuxuu ilaahay siiyay ayaa igu filane sida aan idin doono yeela koo waxa idin ka rabaa hawsha waa idin la qabanayaaye horta bal garab isiiya faaciinuuni saasa waxa la idaarada maamul maxaa la yiraahdaa markaas taariiftiis waxa ka mid ah dadka oo yani hawl loo diro lagu shaqeeyo marka qofkii marka dadka ku shaqeynay asagu ka baxsan yahay taariifkaas ma fiicno waxa fiican maamulku wuxuu yahay dadka oo lala shaqeeyo wixii dantooda ay ku gaarayaanna la gaarsiiyo qofka marka hoggaanka ah dadka wuuna la shaqeynaya wuuna ku shaqeynaya marka wuxuu ku yiri faaciinuuni ikaalmeeya diyaar wuxuu yahay shaqada inuu qayb ka qabto maxaan kula kaalmeynaa wuxuu waxaad u kaalmeysaan biquwatin awood xoog horta dadkii shaqeyn lahaa oo darbigan aan dhisayna ka shaqeyn lahaa keena dad way u joogaan marka wuxuu u sameeyay dulqarnayn banaanka waxba ugama keenin wixii ay haysteen ayuu u maamulay oo bas ah hadii loo helo marka beledkeena waxa aan haysano oo kaliya dad inoo maamula faqri iyo wax la yiraahdo iyo ma arkayno wuxuu ku sameeyay marka waxay diyaaranahay waan kula shaqeynaynaa xoog ma haysan meela qabanaysaan hawsha meela ila dhisaysaan haye maxaan sameeynaa faaciinuuni biquwatin aj'al baynakum wa baynahum radma wuxuu yiri aatuni zur alhadid
وحولي برها الله يكانو دربي وأنا سيناي برها الله كانو برها أسمع ما هو كاني ما يأسمع ما كاني أيقو قدري بره هو هيستين لكن بر دربي سيلو قاعد سمينا قونين وحكوا آتوني إيه كان زبر الحديد براي كان بريه كان كان بيرو كان بيركلو كان بريه أي كان وحولي برها ما كانت ها اسكور سارة واسكور سارة حتى إذا ساوى بين السدفين لما بورد نحضر أيام جد أيام مريجري بريه لكان سو سكور سارة يا لبدي بنا ماشي وكريسي لبدا بورد أيو كسر بوحيي بريه حتى إذا ساوى بين السدفين مركو ولسمي وحول قال انفخوا برا وحول هلا كليو يا كلينا يا أفوفا سما أفوفا ما يلا أفوفا انفخوا ويا أفوفان حتى إذا جعله نارا مركو كلي قال آتوني هذا وحات كنتان قال آتوني أفرغ عليه قدرة لامي هلا يكون لامي برهن كركرايا لامي ينكش باياي لامي كان لامي يا كينايا أيها اللي كيناي هذا لامي جي كانن والله شوي لامي يبريها يا إسقبصدي شغال مركي لما تو جاكي وحلي هذا أما كورميرد أما قيمين أي وبانتاي وقيمي وحول بالكالية قضع داد قضي كرتان أنت سوقات لأن جوج ومجوج إن يسوق قضانا يكسر بحالة الدنيا مركز قضبل هاي والقضي واي والشب أذك واي فولو أنت الدرب قبستان لنا عكل بناء وقدع كرتان بل أيضا اسكت ضيا ويسميه وين ماشي جاكي وحكسوا بحياة شغال القبتين يساعتها فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة من فولي كران من سودلين كران قال هذا رحمة من ربي شغالي والله قبتي معها مركي حفلت مثلا شغال لقبته إن منكر إيو حيابه حن إيو يعني لو قد بلدقه معه إلهي مهديس أي نو هرقشي إلهي بأنه كلمي وما توفيقي إلا بالله ما ملك واكاس مرك لبدا سدان سلهلنو oo midkii xun aan wadxuntahay inuu naga leexo midkii fiican ada waad mahadsantahay hawsha noo qabo oo awoodaas aan leenahay alxamdulillaah rabbil caalamiin midka awooda qabanaya ee maamulka ahna hadii dadku waxa ay haystaan uu amaanadooda u nabadgeliyo oo waxooda dadku isugu aadiyo wadankan wuxuu noqonayaa wadan barwaaqa inuu barwaaqa waxa ku tusaysaa meeqa neef oo geel ah maalintii beedkan lagu qalaa waxa geel la soo kaxayna fiiri waa maalinka sadda geel nool waayaan ma aha yani bacaadka shalambood oo la qodayo ma aha وجيل سو دقالي او لسو ووينيسي او مالين والبا كومنانا لا قلايا هادنا ساساي تahay ما dhamaanayo wuu socdaalay bishi meeqa ku dhufon maalinta inta la qalo soo wareys bishi misay noqotay sanadkii meeqo noqday yaani beledkeena waxa xoolo jooga oo dhamaanaynin feeri malayga inoo buuxo hada bajaajada waarta markay ka hor imaanayaan malay weyn oo xaq uga baxay oo inuu kugu dhufta ka cabsanaysa ay soo daldalaan أزواج بقى الله هرمرينين أو شركة في عني وقلب في عني وحبا لو سمين أي شقي سنايا بارهني أنت دولا إسكاب بنان الدنيا دو وحي سميسام برفا كدايا تندين انتي حيران يا هوسد انتي أبورتان يا يقولون كدر جايان وما ذاك اللي فيناين إن أنا دول إسكاب فرن أو بيدي أي نوع يهين يا روبك يا وحي هذانا دد وبيأك تيسد جن أو جاجو دمنا يكور هذا ملاي لصوب حسنان مر من لاين مر واحد سواد إلى وان هي سناي isku aadinta ayaa loo baahan yahay in loo helo mid kale marxalad kasta marka la joogo oo doorasho ay soo dhawaato qayladeeda iyo buuqeedu uu badan yahay waxaan ugu cusubna ma ah inta hadda aan soo arkayni marka kolba marxalada marka la joogo filin baa la soo daaraa laakiin waxa la rabaa in la ogaado la yiraahdo horta dadku alxamdulillah mustawa iyo wacyi iyo garaad ayay leeyihiin wixii jiray og yihiin هذا مثلاً دورشوينك عن صور دافني إيه وقتنا نجوجنا كوي بنانك إسكت داف أما جيبوتي أما كينيا يكسروا جذب جذها مركي لصوق جلي هاكي وحلود دورنا وحي هاي تاندا ذاك صوق جلي وح دورنا هاي كوا أم بالك السكان سنجري مرحلة ذي هاي ولا يسوق جذب مرحلة دي كل حكتي وحكل حكتي تاندا ذا ينال لجوس سجنه سيدي بيرلي ذا بيرتو أبوران وكله جلي يدقيت سلام أبورا حل دبانا ذا يلا أبورا oo teendada aan lagu sugin oo xildhibaan la soo saartay oo la soo abuurtay oo la soo kharas gareeyay inuu teendada yimaado marxalad kale ayadana taas maxaa dhacay markii la abuurayay kharash kasta lagu bixiyo wixii dhacay hal isboobsiyo ayadoo khudbada masaajidka lagu maqayay natiijadaha soo baxdo oo mid xildhibaan meesha wuxuu ugu diyaarsan yihiin meel kale ha laga diyaariyo wixii la sameyn karo waa la sameeyay laakiin halku dhigi khatarta ay ka soo baxay marxaladaas waxay ahayd كعون كعوده لعقتنا ولا دميي تيادد marka la isugu tagayna waa laga codeeyay abuurkii shalay marka
abuur kala lagu daray marka abuurku maanta ma bilaabeen hor u soo abuurnaa in wax la abuurto way socotay hadda waxa socda marka abuurkiya socda roobkiya daay soo ma jeedaan xildhibaanada la abuuraya dhalaq qof walba iyo kartidiisu u abuurto hadda qaylo waxa jirta marka waxa la leeyahay xildhibaanadii waa la abuuranaya waa la qoranaya oo soo lama qoran jirin faataxa ma la soo akhrin jiray seemeesha lagu imaan jiray yaa arkay qabiil Soomaaliyeed oo xildhibaankiisa faataxada u soo akhriyay soo fariisaba afartan kugu tufaynaa bal xildhibaan noo noqo masaas lagu imaaday maya wala sabuuranay is abuurkii la socdee waxaan suugaynaa bas sidii hore loo bartay oo markii la is abuuro oo teendhada la isugu tago ma wax isbedela imaan doono oo si la ka saaysi aan ahayn miya soo bixi doonto dadkii la abuuray cidii abuurtay ma u soo celinayaan wixii ay ku abuurteen oo meeshii la isku ogaa ma fadhinayaan mise maya markii meesha la isugu tago waji cusub soo bixi doonnimayo wala is abuuri jira hadda ka horba laakiin haddana waxay dhigi jireen xeer kale waxay sameeyeen xildhibaanadu lacag meeshan moogtahay la siinaya oo codka si iyo hebel inta si iyo waxa soconay markaas waxay dhahan lacagta ka warrama si leela qofkan hal qof haduu lacag ka qaato oo yiraahdo murashaxan anigu imaamadeyda ag dhigtay oo intuu la gorgortamo uu yiraahdo warniyo anigu meel kale ma socdo ani la dharji bas oo yiraahdo ilaahay ma kula og yahay waxa ana ku siinaaye meeshii aan kugu sii xirtay ma ii fadhinaysaa oo yiraahdo aan ku sii fadhinay ballan waaye oo uu sidaas yeelo oo meeshii loogu imaanayo ma dhici jirin kuwa waxa markii saan yeelna waxay dhaayaan mid kasto oo dhahay murashaxan ahay adii lacagta ka qaado haye maxaa xeer oo u yeelo la sameeyna waxay dhaayaan lacag Soomaa lacag waa qaadasho codkuna waa qarsoodi lacag waxay qof baa ka diidan adiga ka qaadle 10 hadeeyin 10 kaba ka qaad ku kasoo ku codayna keen lacagta haye hadhow codka markii la ridaayo hebel wuu codayso oo dheyn baayo warqad fax oo lama siinaayo bas codkuna waa qarsoodi meeshaas waxa soo baxday marka wax la isku halayn karaba intii aan soo arkaynay waa la waayay hadda waxa jirta marka ma sidii ay noqonee mise wax la isku halayn karaa meesha soo baxaaya wareerkaas uu jira hal arrin marka la ogaado markay marxaladan oo kala joogto siyaasiyiintu qof walba fikradu gadi karo ciduu la hadli karo la hadlaaya hal arrin ummadda Soomaaliyeed iska ogaato wax qabiil isu dagaalsan meeshan ma jiro dan ana meeshan rabo iyo meeshan ana ka raba iyo ana ka qaadaya iyo ma igama qaadaysid intaas la wareeganaya marka ha kala qaateen cidii kala jiijideen kala jiijito hal arrin aan banaanka iska ilaalino inaan iskhilaafka siyaasiyiinta intaan run u malayno aynagu islayna marka oo inagu awr kacsan dhigi jiray waan isku awr kacsan dadku soo jeedaan war cid wax u qaban jirtay ma jirto cid walba waxay ayadaa wadatay idinku soo kala hara meesha doonaysaan kala aada laakiin shacabkan Soomaaliyeed qabiilna isugu dirina isnaayb kala ma qaba shacabkan kuraas la kala eryanay ama la kala qaadanaa meeshan taala cidii Ilaahay u calfaha qaadato walaaltinimada guud ee Soomaalinimadana yaa laga tagin midda kalena dadku yeesan isxanaajinin oo yaani qof dadka qaarkii waxa laga yaabaa siraacan oo siyaasiga ah inuu maleeyo meeshii ugu dambeysay oo naftu ka dhacdo oo qofkii uu rabay haduu soo bixi waayo uu sakaraado oo uu xanuunsado oo uu jirado waxaan wax kale ma geelayda waxa la geela ama xoolaha dadka waraabsanaya markii xoolihii ay imaadaan ceelka ama warta ay imaadaan qof walba wuxuu jecel yahay xoolihiisu inay hor cabaan marka wadaanta iyo darka iyo wal isku jijiida siyaasadan arkays wax kale ma waa wadaantii iyo darkii iyo xoolihii la waraabinayay intaas la isku jijiidaya markii xoolaha la wada waraabsado oo galabtii la gaaro oo la baxayo xaafadihii iyo baadiyii la sii aadayo shalay haday kuwii wadaanta kala jijiidanay waraayiga la igu laxa intay qoslaan oo farxaan oo shaah wada cabaan ayay wada fulayaan oo xoolahoodii ayay ka daba baxayaan qaybtii wajigii hore maanta ee la isku riixay wadaanta isiiyo ku siin maayo biyo waraabsi la ahayd maahina cuqdad ka dhaxaysa mayna ahayn marka biyo waraabsiga ha ku go'ina hay biyo waraabsadeen hadhow markay dhamaatana saaxiibaha la ahaado wadankuna inoo deganaado جزاكم الله خير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد